loo geystay walaalkeena Baabajey maxaa nooga wacan war Soomaalidaani waa dad qalbiga ka dhintay maskiinkan oo xataa curyaanka ah oo xataa aan xamaalan karin maanta YouTube-kiisa ha ka shaqeysto oo maxaa la dhihi jiray risqigiisa yar oo ilmihiisa ha ku karsado afkiisa ha ka shaqeysto Soomaaliya ma quri waane qof curyaan wax u quri laadiin haddii qof lixaadkiisu uu dhameystiran yahay oo Ilaahay siiyay sidee wax u quraysan qof curyaan ah oo wax u quri waaseen qofka noocan aman waxa loo baahan yahay xataa in aan anaga dheerigelino. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتك وحدن تيفيق عصب ميديا ما بدأ دون دافيس أد كجس قنتين عبد أحمد بيشتو هدي أد فيسبوك بيش كاس قد دعواني شو فلو ده فيديو يعني لايك نوصار سينا شرقري وحارو مركب موقال كان دقيقة ده كومان لي إنا أقوها الله ولكن بابجي رنتي بابجي علاش يهوريي موقال كيسا وحان أركي أصو شن مالين عميالو muuqaalkana waxaan uga soo hadli waa xaasinimo miiga ahayn cilad farsamo jirta ayaa muuqaalkiisa uga soo hadli waayay macnaha Baabajey wuxuu yiri aniga muuqaal walba aan soo dhigo copyright ayaa lagu qabanayaa waa xasuusatiin Baabajey markuu xafladda 100k oo subscribe oo 100,000 oo subscribe markuu gaaray xafladda waxaa loo dhigay beerta banaadir muuqaalkaas oo soo dhigay bartiisa YouTube Baabajey ugu qoranta hadda maraa 200 oo 70 iyo meelahaas maraayo markaas markuu soo dhigay video wuxuu gaaray 100 views oo gaaray markuu 100 views gaaray oo isdahayo bishaas risqigaada oo viewska ee meesha ka baxso ayaa muuqaalkiisa copyright lagu qabtay runtii Baabajey caloosh uu huriyay Soomaaliya anaga waxaan ahaan qof qalbiga ka buko hadii maanta qof curyaan oo xataa maskiinka oo xamaalan karin oo ilmihiisa oo YouTube-kaas ku korsanayo sabab ay ku dhacday in aan anaga xaasidnimada heerkaas ee maxay tahay Soomaaliyeed qofka maskiinka ah waa curyaan wuxuu yiri xataa hadii aan xamaalo lahay xamaalkay gal lahay YouTube-ka waxaan soo fiirin ana kale xadkeena dhameystiran ayaa YouTube-ka soo fiirinayna asiga wuxuu yiri ciil waa la ciil wallahi nin rag lama ciilo ولي مقالك مسيودي كريم ماشي أنا كسر جبيلة هذه مقالك كاش لك نوصار وسلام عليكم.